waxaan nahay bilaal oo ku mahadsantahay sida noo soo dhaweysay sharaf lahayd iyo cuntada noo sameysay maanta waxay noo tahay sharaf iyo honor bilaal waa nin Soomaaliya waa nin reer Jiliba waqti hore ugu dambeysay Soomaaliya markii maanta waxaan rabnaa inaan wareysano bilaal taariikhda kooban noo sheeg meesha ku dhalatay halkii deganaan jirtay Soomaaliya sidee ku timid Tanzania oo kooban أحسنت عبد الله الصودوا ورتي مرتلمة ما تنقول صودويني أنا قاعد كن تنزانيا نشوفنا وقت ديران صود قلني سوماليا ولي ودن كينو واي وأوبعنا هنا نكون قننا وهي لها لو قوانا سوماليا وارمينا على غيرنا كقيب قلنا لكن سيدي أحان وهواي ولي وسواس نكون هجرنا إلى هي نوف الجيو وسواس كنا جبها نكولا وانا ودن كينو أنا قاعد horti waxaa waaye waxaan ku dhashay meel la yiraahdo Booriin degmada Jamaame sanadkii ay ahayd 1959 taariikhdii ay ahayd 15 bishii shanaad markaa iskuulkan waxaan ka soo dhameeyay iskuulka Mugambo waagii oo af Talyaaniga la bari jiray hadhowna waxaan ku soo galnay af Soomaaliga maalinimadana waan soo marnay إن شاء الله كدبنا سنة مكايات كوني سجال بقول يتطلعتني سد حذي يعفر تمالهاس وهان كسوق يبتدي مقدشو وهان لشقة قبل ده يجري الجامعة محمد غالب سكر إيدان كبوليس وهان جري هان كسوق لابتدنا وهان سوق قال لي وزارة دبيرها دكمة الجامعة أيان كسوق شقة كدبنا وهان سوق قال مريري شغان كسو هلي مريري ورشدي سكرت مكلا بساي ترجمانا هانا كسو قالي قالدا iyo Soomaalida turjumaanaan ka noqday ilaa 1979 ugu dambeeyay markaasaan ka soo tagay Tanzania soo galay 1980 bilowgeeda Tanzania joogay ilaa hadda Tanzania joogay waxyaalo badan oo soo qabanay Tanzania Soomaalida difaac iyo waxa aan u sameeynay turjumaana waa u sameeynay markii la soo qabto Soomaalida marka la geeyo maana u sameeyna difaacna waa u sameeyna sidii oo gudaha laga soo saaro banaankii laga saaro wadankooda lagu celiyo marka adna waa joognaa hadda waxaan teganay meel oo ka fog Mukranga la yiraahdo 50 kilometer aw dheeriyahay Dar es Salaam ilaa Mukranga waxaan u jecelaaday magaalada hadiisa ma jecelo waxaan jecelahay beeraha maanaha Soomaaliya beeraan ka soo kornay meeshana beeraan jecel marka ساسا نجومنا ماشان كيسو دوا. سؤال الله ربنا ودي بلال هذا وما سنت سنة وشكتي حد محاكمتها ودن كان حنك صوب محاكمتها شقاها محاكمتها ذاتك ودن كيمانا يا وهذين نوصل بيران هل كان محل قبل كرتان محل وصلين كرا فاسيليتا محل كل تلنيس ذاتك دياس براها وشو دبدا حدير روان تزاني مادام محل هلا نوصل كروي كرتان hadda waxaan ku dhaha jirnaa waqti dheer adiga 20 sano la soo dhaafay ilaa hadda waxaan ku dhaha jirnaa shaqooyinka dadka oo cusubta soo galaan Tanzania oo investor ay rabaan in ka sameystaan kambaniyasha ay rabaan baan u sameynaa waxaan la shaqeeyaa qof la yiraahdo Abdulaziz Mohamed Ali shaqadaas ayaa isla shaqeynaa marka facilitation baan sameynaa advice baan bixinaa dadkii cusubka soo galaan wadanka oo wadankii aan ka siinin advice-kii anaga aan siinaa wadadii oo la mari lahaaydan waa tusnaa shaqadan ku company hadda oo noo la shaqeynaa waxa la yiraahdaa Interactive Consultancy Group albaha shaqooyinkaas oo kale ayaan ku dhex jirnaa marka waxaan leenahay dadkii imaanaya wadanka Tanzania waa inay fiiriyaan dadkii loo tagay marka waxaa jira dad oo beenlaha oo dadkii lacagta iska qaadanayaan oo duuduumanayaan anaga saas maaha company aan leenahay shaqadaasna waan ku dhex jirnaa dadkina waa qabilnaa barmedka iyo company furitaankiisa leesimada maal TRA wadada dhan oo lagu bilaabi lahaa mashruuca dhan waan ku dhex jirnaa هذا وما حسنت هاي سنة وسيسة وبحين تاس وحن كل كويدينا ودن كان ذاتك وحيالها هو بدن لكن مادان وتشالنج شيء محاكم له ولا كل ما أخبرها هو والله challenge واجران number 1 waxaan dhihi karaa dadkii markay soo galaan waxa waaye wadada ay ku soo galaan meel ay ku toosan ma qabaan marka dad oo iska socdaan dhihi karaa waxaan rabaa in ay sameeysid
oo lacagta ka qaataan haddana wax loo sameynayo ma jirtaan waa waxaasaan u furnay company oo toosan oo waxyaalihii dadkii oo hore ay ku gaari jireen inays wadadaas inay iska dhaafaan wadda toosan inay kusoo galaan iyo tuugnimadii meeshan looga laakiin dhinaca waddankana waxaa waaye ammaankii waa iska fiican tahay waxaa loo baahan sharcadii waddanka in la raaco qofkii sharcadii waddanka haddaan raacin waddo kale hadduu galo waxaa waaye dhibaato waa imaan laakiin haddii oo sharcadii waddanka hadduu raaco oo waa dhibaato ma arki karo waddo toosan hadduu kusoo galo aada umahadsan tahay waxaan kaloo weydiinayaa waddankan waxa ugu weynaa saad usoo gasheen saad ii sheegtay waxaad soo gashay 79kii waxyaalaha caqabadaha ugu weynaa kala kulantay maxaa ka mid ah hadaa halka sheegtay waxa waaye waxyaalaha oo aan kala kulnay waxaa waaye hortii dadkii waddanka markay soo galeen laba nooc ay ku soo galeen waxaa soo galay dagaalkii Soomaaliya markay ka soo bilaabatay dadkii oo soo arareen oo ay ku soo galeen waddanka qaxootinimo ay ku soo galeen waa la dhibay laakiin kadibna waxaa soo dhacday in oo loo ogolaado qaxootinimo ay ku soo joogaan haddana sharcadii la siiyo haddana waddan laga dhigay waa iska joogaan hadda waxa dhibaato oo saas hadda ma jirto laakiin dhibaatada yaryarkii waa jiraan laakiin waxa waaye waa dhibaato yaryar oo qiimo aan lahayn haddii oo difaac loo helo wax dhamaanayso waa asaasa lagu joogay lahayd nolosha Tanzania ka wada maqaaliba dad badan baan weydiin doonaa macnaha maqaaliba ma raqiisba qofka dadka soo guuraya oo kala harkaa inay soo degaan rabaan nolosha Tanzania waa roon tahay marka anaga waxaan dhageysanaa dadkii oo meel kale ka imaanaya Kenya iyo meelahaas iyo Uganda iyo meelahaas ka imaanaya iyo meesha joogaan waxa waaye noloshada qaali saas ma aha waxa oo qaali dhigayso waxa waaye markii aad soo gashid waxa wadadii aan ka siin laakiin hadda wadadii aad baratid noloshada ma xumo Tanzania waa iska fiican tahay dhinaca ammaanka iyo dhinaca oo shaqadii aad rabto inaad gashid xuduud ma laha shaqooyinka wixii aad rabto waa samayn kartaa Tanzania adiga ma jeclaan lahayd markaa retire noqotay noloshaada inaad ku laabatay jilib iyo meesha ku dhalatay waddankaada soo aragtay والله وبعنا مرة أنكو على وهاس ولي ورستي BBC أي ورستي وهانري ودن كاجا وودن كاجا دي أي نقطة أمان وهنجليا إن ودن كينا إن نكون نقولنا شرب أنا كنا فرسمة دي وهوا ودينا بيرا إن دتكي بيرا تعليم كورا إن سيو سي هرمرس أيو جاران وهاي ودن كدجارة يكوجرتي وقت دير وهي أو دي ودا ولا صابري weli Soomaaliya weli ma taalo amaan haday noqoto waa geynayna shaqada dadkii si u shaqeyn lahay beeraha si oo nooc cusub ay ku shaqeeyaan nooc ay hore laga tago bilal waa aad u maasan tahay dawladdii hore waa la soo shaqeysay kacaanka haddana waa aragtay xaaladda wadda ku jiro maxaa difference u dhaxay dawladdii markaa fiirisay dawladda ahaan jirnay hadda xaaladdan ku jirno dawladdii hore iyo hadda dawladyaasha la soo maray marka isu fiiris haddaan fiirino dawladdii hore afeeneed si fiican waayo dadkii lasma fiirinaynin si fiican adiga yaa tahay iyo waxaas laakiin haddeer waxay noqotay qof kasta waa la isqabsanaa si fiican hortaada qof hadduu soo socoto waa ka cabsanay waxaa leedahay ninkaas qabiilkee waay amuu waxbaa ii sameey laakiin waagaas ma jirin ammaan bay ahaan jira waa la sameeyaa waddanku waa qisma lahaa horkaas waqtigaas ayaa fiicneed marka waa u baahannahay madaxa oo sax in la helo oo waqtigii hore ahaan inuu ka soo dhigo waddanka waswaaska iyo cabsiga dhan laga saaro aad iyo aad bilal aad u mahadsan tahay saa noo sharaftay saa noo ixtiraamtay saa nagu soo dhaweysay aniga ahaan markii uu sheegay Cabdilcasiis walaalkay uu sheegay ninkaas ku barayaa anigu waxay ahayd opportunity aan ku barto markuu sheegay raggii hore oo meey ka shaqeeyay mareere markaan maqlay taariikhdii iyo waxaan rabay inaan nooga sheekaysid mareere iyo meesha soo martay iyo waxay ahaan jirtay waagi mareere aan ka shaqeyn jirnay waxa dhalis ma ahayn waxa suubis bay ahayd in hadhow wax la dhaliyo meel oo duur laga qaato oo qasab la abuuro webiyaha la sameesto warshada la dhiso waa meel oo dhismo ka socotay waxaan ka soo tagnay iyada oo diyaar ee ma aragtay oo waxa soo dhalin bilaabatay
laakiin dadkii loo dhaafay waa wadi waayeen dagaalkii markay soo gashay wax kasta waa burburtay waxaa loo baahan yahay mad cusub badaa wadankii ammaana ay noqoto haddana lagu celiyo oo laakiin mashruucadii oo aan ka shaqaynay oo sokorta afrika dhan ma taalin waqtigaas laakiin haddii waxay noqotay ewer marka lagu soo celiyo adigana waxaan dhahaa soo dhawow anaga intaan joogno laakiin adiga maantaan dhaweyskiisu waa yareed marka waxaan rabaa inaan isdiyaariyo marka inaan kusoo dhaweeyo si fiican adiga keligaaga maaha dad kale haddii ay rabaanna inay kusoo dhawaadaan ay arkaan sidii aan u joogno Tanzania magaalada keligiis ma anfayso meeshan oo kale markii la keeno marka ay ogaanay in ammaanka Soomaaliya Tanzania iyo meel oo aad soo degan kartid maalinta dhan hatta hoteelada iyo beachka maaragtay meel oo ka sii fiican waa meesha marka la soo dhawaado aniga ahaan markii aan halkaan imid waxay ugu dambeysay wadanka Afrika 33 sano kore ka tagay dagaalka ku dhacay dadkii cararaan ku jiray iska tagay ma ku soo laaban Afrika waa first time aan soo laabto maanta markaan laabto insha Allah taala oo ku laabto waxaan la tagi doonaa wax ka duwan fikirka kaysta marka waxaan ku arkay halkaan opportunity fara badan jiro waxaan arkay waxyaalo badan oo halkaan la sameeyo marka aniga hadda waxaan ahay messenger dad badan waxaa jira iga dambeeyo team ah oo rabo halkaan yimaadaan marka waxaan u sheegay waxaan leeyahay we are on the right hand waxaan la soconaa rag baalki ah Cabdicasiis ila si sharaf loo kalaamay iyo soo dhaweeyay adigana sida maanta noo soo dhaweysay aad ugu mahadsan tahay again thank you so much for your hospitality and inshallah ta'ala I will look forward inshallah na wada shaqeynaa thank you Allah ma thank you thank you alaykum salaam wa rahmatullahi